isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan doonaynaa inaan trade qaadano insha Allah. Suuquna saa ujeedaan waa OTC market. Saa ujeedno suuqan waxa waa down trend xoogan ayuu ahaa. Laga soo bilaabo halkan waxa uu sameynayaa suuqu low high. Halkan markuu imaaday waxa uu galay consolidation. Sababaha aan horizontal line-kan u keenne waxa way wax kala maahan. Lineka madowga ah waa liquidity resting. suuquna halkan uu isku celceliyay bacdeen halkan waa 50% line of Fibonacci tool. haddaadan ogeyn sida loo isticmaalo Fibonacci tool, I wanted to show you now. halkan ayaa ka bilaabaysaa from low to this high. highgan ayaa keenaysaa waxaa kusoo baxaysa 50% line ayaa kusoo baxaya. 50% line waa suuqu meesha uu ka laalaabtay dhowr jeer sida ujeednaba waa kan. So waana calaamadeystay kalarkiya u bedelay suuqu dhowr jeer ayuu halkan ka laalaabtay. waxaana rabaa inuu gaaro ilaa iyo liquidity-gan horizontal line-ka madowga ah. saa ujeedno haddii aan imaano 1 minute, all those waxaan kasoo sameynaya 5 minute ama analyzing-ka oo dhan waxaa kasoo sameynaysaa 5 minute ayaa kasoo sameynaysaa. hadda waxaa imaanay 1 minute-ka. bal eeg sida quruxda badan ee uu socdo suuqu. retracement-gan selleriska ah waxay caddeynayaan in buyers xoogan suuqa ay soo geli doonaan saacadaha soo socdo. sida ujeednana hadda waxaa imaaday buyerskii uu awood dhanka iyo tiktoka. linkiga waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka ama qaybta comment-ga ayaan soo dhigi doonaa. halkaas soo follow garay. waxaan idin rajeynaa horumar iyo baraare insha Allah. gacantiina fadhiisiya sidoo kaleentoodna wax walbana u dulqaata. dhibaato kasta oo aad trade-kan kusoo martidne
ama guuldaro kastane maalin buu wuxuu isku bedeshaa guul insha allah. marka yaa la niyajabin suuqaanne ha maleynin in aad hal maalin taajir aa ku noqonaysa ama hal habeen trade aa qaadatid aad taajir ku noqonaysid. waxaad soo sabartay dugsigaagii hoosaa soo sabartay, dugsigaagii dhexaa soo sabartay, dugsigaagii saraa soo sabartay, jaamacadaa soo sabartay. waxaa laga yaabaa caafimaad inaad baranaysay muddo 6 sana 5 sana aad waday, intaasna aadan shaqo iyo waxaas aadan raadinayn oo aad baranaysay facultygaas iyo waxyaabaha la xiriira. marka hadda tanne diiradda saar, iyadana waxay u baahan tahay 5 sano kale ama 4 sano kale. badanaane dadka traderska ah waxay suuqan ku jira waxay faa'iidadoodii ay sameeyaan after 3 years, after 4 years ayay sameeyaan faa'iido. mar walbana waxay la qabsadeen guuldarrada ayay la qabsadaan, maxaa yeelay sanad kasta haddii aad meeshan ku jirtid waxaad la qabsanaysaa guuldarradii. businesskanne waxa uu leeyahay guuldarro, business walboo dunida ka jirane guuldarro iyo faa'iidaba wuu leeyahay. marka waxaan idiin rajeynayaa in aad gacantiina aad fadhiisisaan oo aad isku daydaan in mar walbo suuqan aad si degan uga trade garaysaan. haddii aadan everyday aadan trade qaadan karin, isku day isbuucii inaad hal ama 2 trade ka badan aadan qaadan, weliba si fiican aa u analyze garaysay. 1 minute dadka ani waxaan dhihi lahaa iska ilaaliya 1 minute. 1 minute ma kuu wacna, maxaa yeelay 1 minute-ka wuxuu kugu sameyn karaa late entry ama somehow asagaa ku tuuri karaa. haddana planningkaagii dhan ma kuu shaqaynayo, maxaa yeelay planning ayaa u baahan tahay. haddoo kaletood markii aad rabtid inaad sameysid timetablekaasne aad isdhahdid afar trade ka badan ha qaadan, waxaa arkaysa adigoo 12 trade qaatay markii aa 1 minute trade galinaysa. marka insha allah iska ilaaliya tradekeeda saacadahooda badanne hala isticmaalo.